wasiirka amniga Jubbaland ayaa ciidamada maamulka Jubbaland wuxuu amar ku siiyay inay dagaal ku qaadaan ururka Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan oo hoos yimaada maamulka Jubbaland. Wariyahana magaalada Kismaayo Saabir Cabduqaadir Warsame ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray Kismaayo. wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland iyo qaar kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland oo ku sugan gobolka Gado ayaa booqasho ku tagay xirada daraawiishta ciidanka Jubbaland ay ku leeyihiin duleedka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado. mas'uuliyiintan uu horkacay wasiirka amniga Jubbaland ee booqday xirada daraawiishta ee ciidanka Jubbaland ay ku leeyihiin degmada Balad Xaawe ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay qaar kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ee ku wehelinaya booqashada wasiirka amniga Jubbaland ee ay ku tageen xirada daraawiishta ciidanka Jubbaland ee degmada Balad Xaawe. la dulmin haya kamida waxa kamida mid kan adigu hor fadhiya kamida tali unuga taliya kooxa taliya ururka horin saasa kamida wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan marraba warka inaan dheereeyo waxaan rajaynayaa biidin karim haduu la yiraahdo meeshan meel ka fiican inaan isku wada kulanno waxa kale oo ogtihiin ummadda Soomaaliyeed waxa ku dhacay wada ogtihiin 500 oo qof iyo ka badan oo Soomaaliya oo muslima oo ila tawxiid oo tawxiidsanaysa ninka raba inuu janno ku galo ee horay u sii sahayday qof kasta oo ibn aadana oo cilmi aan lahayn xataa aqli leh wuxuu ogaanayaa qofka asaga wuxuu raadinayaa inuu janno ahayn cadaab uu raadinayo waxa kale oo ogaanaysaan midka isqarxiye ee dulliga ee hadda naftiisa gooyay ee la janna raasanayay mid baa soo diray diinteena mar gadaal loo fiiriyo rasuulka kaleey salaatu wasalaam dagaalku hogaamin jiray safka hore uu tagi jiray waa la dakhri jiray dhooshiisa la jabiyay oo nabi maxamed oo macsuuma ba halka ibaan jiray midka soo diray asagu inuu jannada soo raasamiyeen haboonayn wiilkiisa inuu qaraxa ku soo xidho uu dhaho orado jannada ee galmeen haboonayn waxaad ogaanaysaa marka ayada waa fikir khaldana ma aha wuxuu janna raadis ma ahan biidna karim waxaan rajaynaynaa kuwa annaga naga dhintay inaan ilaahay uga rajaynaa inaan annagu jannada uga hormarno ayagana ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantaana uu ka cadaab waxa isku kan dambeysay maalintii halkan dibku uu nagaari ka bacdi ismaan imaanin saaka wadan soo booqanay waxaan ku soo booqanay saaka salaam baan idin wadnaa xildhibaano badan waa soo socdaan gobolka ay joogan waxaan naga go'an in aan qaadano hubkayga inaan qaadana naga go'an. ugu dambeyntii wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo la hadlay warbaahinta ayaa ku amray ciidanka Jubbaland qaybahooda kala duwan in ay u diyaar garoobaan dagaal degdeg ah oo lala galo ururka Al-Shabaab sida uu sheegay waxaana uu ciidamada ku amray in ay u diyaar garoobaan dagaalkaasi waxaana uu intaasi raaciyay in ay foolxumiye daciifnimo ku tahay in jaanis la siiyo ururka Al-Shabaab ay ku soo maleegaan qaraxyo amniga shacabweynaha Soomaaliyeed ee maalin walba lagu xasuuqayo dalka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo hadalkiisa sii wataaya raaciyay in ay sharaf dhac weyn ku tahay in jaanis la siiyo kooxda nabadeedka ururka Al-Shabaab. wasiirka ayaa amar degdeg ah ku bixiyay in ciidamada Jubbaland ay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabaab si looga nabad guuriyo kooxda ururka Al-Shabaab dalka Soomaaliya. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بوغشيدا ساكا ciidamada ama safarkayga wuxuu ku saleysan yahay inta badan waad aragtaan xasuuqa iyo dhibaatada loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed oo u geysanayaan dhagar qabayaasha arxan laawayaasha ah oo xaqiiqiyan shacabka Soomaaliyeed Al-Shabaab u yaqaan laakiin Al-Shabaab ma ahan ururka gumaadka ama dabargoynta shacabka Soomaaliyeed waa ururka dabargoynta shacabka Soomaaliyeed mar haday saas tahay oo hadaf ay leeyihiin iyo qof gaar ah u jeedaan aysan jirin waxa waajib ah in qof kasta oo Soomaali muwaadin ah oo go'aankiisa iyo mowqifkiisa iyo tabartiisa inta kaga aadan uu ku bixiyo dhagar qabayaasha si dalka Soomaaliya looga sifeyn lahaa ciidamada Soomaaliyeed حقيقيا وحا أدلان عيدا لهين عيل كما بحو حقيقيا وحا أدلان عيدا لهين عيل كما بحو قضب كاس ومد اللو بهاي هاي قف كاستو إنو فهمو لقب اللعبة مدحوينها دولة الصوماليات مدانا محا عبد الله فرماجو أو حد الدلك مدحكا مدحويناش الدولة قبلية دا قف كاستو أو مسؤوله الصوماليات وحا اللو بهاي إنو فهمو حويان أولا دلان عيدا لهين عيل كما بحو وحا ليا هاي عيدا مدى الصوماليات
u diyaar garooba sad cadowgeena iskaga dhicin lahaydeen gaar ahaan ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland waxaan farayaa ama amrayaa in uu nin kasto kamid ah laga bilaabo saacada naftiisa diyaariyo sidoo u badbaadin lahaa shacabka Soomaaliyeed oo aysan dhicin in shacabkayga annaka isku meel nagu laayo midkaan isku dilayna aan isku dilno meel ka baxsan shacabkayga midkana dilahaya aan ugu dilo meel ka baxsan shacabkayga midka aan dilayna aan ku dilno meel ka baxsan shacabkayga yeysan dhicin maalin kasto in ciidamadoodu fadhiyaan dhagar qabo uu makri soo maleego magaalooyin ama baadiye ay haystaan ay ku soo sameeyaan baabuurra qarax ah kadibna ay la dhax imaadaan shacabka Soomaaliyeed ma aha baabuurkan in lagu dhax sameeyo magaalada Kismaayo ma aha magaalada Xamar in lagu dhax sameeyo ma aha magaalada balad xawoon saaka joogno in lagu dhax sameeyo waxa lagu dhax sameeyay miyi ay nimankan markaas ayada gacan ku hayntooda ay ku leeyihiin oo jaanis u leeyihiin 10 maalin 20 maalin waa markii ugu horeysay oo mas'uul ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland uu amar ku bixiyo in dagaal degdeg ah ay qaadaan ciidamada Jubbaland qaybahooda kala duwan tan iyo wixii ka dambeeyay 14 Oktoobar xasuuqii baanaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee loo geystay ummadda Soomaaliyeed Sabir Abdulqaadir Rusman Sabir Honesty telefishinka Somali Cable Kismaayo